الحمد لله نبينا صلى الله عليه وسلم waxaa ka sugan laa nikaaxa illa biwaliy guurku ma asaxo hadaan wali lahayn waxaa labaad oo ka sugan min xadiisi Aisha ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliha fanikahuha baatil fanikahuha baatil gabar kastoo guursata ogolaansho la'aanta waligeeda ama waligeedoon ogolaansho laga haysanin طبعا قاضينا وسن كعن دافين حديث كذا سيو شيغي نكاح هذا وحبه كما جيرو صدح جير النبي كو عليه الصلاه والسلام ان وداد كو يمادو كو يiraahdo wixii nabi waxba kama jiray yiri waxba ka jira war meesha ku jiro aadna aad aqbasho ama dhagta u dhigta war meesha ku jira maaha gabadhaasi qudba sirada ay martay guurkaasi ma asixin meherkaasna ma saxna waxay u baahan tahay haddii weli waalidkeedu uusan ogolaanin inta ay ka dhaadhiciyaan ay ogoleysiyaan una sheegaan inay meherkii saxaan haddii kala wada joogooda ay ku wada joogaan reer iyo gogolna ku yihiin xaaraan wey ma banaana xeerka goolada dhex marayana dembi weeyo ma banaana waa dembi iyo xiriir gogolada xaraama anu dhihi maayo oo malihi xad iyo zinaad mudateen malihi ilmaha haddii uu dhashayna baab kala weeyo ilmuhu aabihii ka dhalay baa loogu abtirin ee qudba sirada kaaga dhalay buu ku abtirsani oo ilmuhu isagu dambi ma gelin abtirkiisana la lumin maayo munaasabada badan oo kalena waan kaga hadlay laakiin waxaan rabaa inaan ku iraahdo meherkaasi ma asixin naska nabigaana sida ah haddii aad Itoobiya joogtana Soomaalida Itoobiya ay Shaaficiye yihiinna sidaas madhabka Shaaficiyada inuusan meherka asixin meherkaasi ma asixin sadarteed gabadho jidka u furani iyo wiilku marka koobaad haday sida isku qabeen waalidkuna uusan ogolaanin oo san raali ka noqonin horta labadoodu waa inay kala guuraan waa inay hal bil ama hal caado ay gabadhu hesho way waalidka intii loo sheego meher cusub oo saxan in la sameeyo way kankii lagu sii wada joogi lahaa ama ilmaha joogo ama yaanu joogin wabillahi tawfiiq